هل 4 بليون دلبت هذانا 2.8 دبل هاد دلبنيسان ولا هاد دلبنيسان dhibaatadii waa sii kordhaysaa dhaqaalaha xaguu aadaa waa isla xisaabtan marka Soomaaliya beesha caalamka waxay ku heshiiyeen mutual accountability waxa isla xisaabtan laba dhinaclaha lagu heshiiyey dhinacan kale lama xisaabtamo dawladda Soomaaliya ma la xisaabtanto hay'adaha ka shaqeeya samafalka iyo gargaarka ma la xisaabtanto mudnaanta ay dawladda Soomaaliya u baahan tahay miiska looma saaro waxa dawladda Soomaaliya ka saari kara gacan horsiga iyo tuugsiga iyo inay ku tiirsanaato ajnabi ما laga xisaabtamo saas daraadeeda waxa loo baahan yahay kuul xisaabtan saan la xisaabtan hay'adaha loo nimaadna waxa u baahanahay dadkii la xisaabtami lahay shaqooyinka ayaga la xiriir in la xijiyo ma dhici karto inaan sanadka hore aan baar dheer tagay aniga abaaran aan u tagay inaan dadka ka caawino oo hay'ado international oo carbeed aan waday si dadkaas loo gargaaro sanadkan hadda markii laga soo wareegana baar dheer waxay dhex jiiftaa biyo baxo oo dadkii waxa dilaya fatahaada dilaysa suuragal ma aha إن أساس كجرو صدق صرا فتهاد أبار نحديده الدوكن أون إنه وشكت إنه بلايين العقل نقول بحيه حقيقة قالت أنت سؤال أرتكل أنا أقرأ جورنال عالمي أنا أقرأ ما لا فرميدا كشجع ضد أصلا تقلك أنا ضد يوصل نقرأ يسوي حيتاي دولة السومالية هلتي مادو استراتيجي يجو أنا دي هولا سوح لوجا قبلها تاس أنا جنوصل نقرأ السومال هدانا أيها تكسر نقرأ يسمى حواي in ay waxaan iska tahay industry business iska noqotay wax laga ganacsada iska noqday arrimaha humanitarianka ayaan ku soo noqonaysa dadka ka shaqeeya waliba kuwa fulinta ah ma kuwa deeqda bixiya ka deeqda bixiya kana u soo dhiiba kan waaye shaqada waxa meesha kula habsaamay oo haraadiga ku noqday runtii waan gartay ergeygii waxa tahay madaxweynuhu magacaabay abaaraha dhibaatadii waad soo aragtay marka dibadda u baxdid iyo waxaad kala kulmaysid lacagtii waad sheegtay inay manayso oo hay'adihii qaabilsanaa loo dhiibayo hase yeeshee sidee la doonayay aan loo samaynaynin marka qof kaaga mudan ma jiro inaad madaxweynaha la fadhiisatid inaad la fadhiisatid hay'adda sharci dejinta hay'adda fulinta oo u sharaxid dhibaatadu halkanay ka jirtaay sidaynu u awoodnaa marka arrintaa ma samaysay dawladda mu sheegtaa haa constantly madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dadka madaxda executive-ka inta aan arko waa ka gaarsiiyaa in loo baahan yahay qaabka loo wajahayo arinta humanitarianka annaga Soomaali ahaan inaan wax ka bedelno see wax uga bedeli karnaa saddex arrin loo baahan yahay mid waa ta hore u sheegay dad karti u leeyahay in la xijiyo dadka wax la qabanayo waxa wasaaradaha ama hay'adaha quseeyo la macaamilayo ayaga labo in dawladdu ay la timaado policy mudnaan ay tiraahdo waxa aan rabna annaga saan waay hala sameeyo cidda sameeynayna out wadamo badan oo sameeyaa jiraan iska takadaada sameey karin this is waxa aan u baahanahay annaga waa in ayaga lagu dawafayla mid saddexaad maxaa waaye wada shaqayn dawladda dhexdeeda coordination inaysan wasaarad kale ama hay'ad kastaaba kaligeed dhinac u bixin oo kaligeed dhinac u ordin oo dawladdu ay wada socoto ay coordinationkaas ay wada leedahay ay wada shaqaynayso saddexaas diin la helo waxaan is leeyahay dadkaana dishay runtii waa laga qaban karaa sidoo maxaa looga baahan yahay gargaar bini'aadanimo والله gargaar bini'aadanimo markasta oo dad dhibaato ka dhacdo waa u baahan yihiin oo Soomaaliya hadda dhibaato ka jirto oo waa loo baahan yahay laakiin ku tiirsanaanta waxa aan loo baahnayn in anaga gargaar ku tiirsanaana ceeb ah 30 sano hadda marayna maalmo social media waxa la wareejinayay 92 markuu madaxweyne Bush xariiqa qaxootiga tagay iyo Guterres xariiqa qaxootiga joogo waa sawir ka bixinaya meeqa laga jooga 30 sano ka bacdi xariiqa qaxootiga kaamkiya wali dadka Soomaali ay taagan yihiin waa macnaheedii waa inaan marka aan asaan uga bixi lahayn taas fiiri waa ceeb qaran oo waxay dhihi jireen maaragtay macnaheedu jiray ceeb qaran waaye waxa annaga hadda haystaa macnaheedu sariigtii qarana u baahanahay marka si aan sariig qaran ula nimaadnane annaga isku jeedkeena inaan ka baxno waaye oo baashan hoose oo reeraha iyo deegaanadii annaga maanta isku maqanahay ama shakhsi ahaato ama qabiil ahaato ama deegaan ahaato sariig qaran saa ula nimaadno oo dad qaran ahaan u xishoonaya u noqono waa inaan dee tuugsiga aan ka baxno waan gartay su-aasha kalen damacsanahay ama aan doonay inaan ku weydiiye waxa weeye siyaasi horad ahayd waa tartantay waa laga badiyey dabcan sida aan ognahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku guuleystay meesha inkastoo dawladda ka tirsan tahay hadda oo laga yaabo inaadan sidii la doonayey uga hadli karin si wax u socdaan haddana siyaasaddu meesha u socotay bal haddaad aragtidaad nala wadaagtid والله دي أنا مدحونا هرت دولة ده هذا عصبة حسن شقة دجال كده شباب كوي يقوم يمسنين واهي سشقة دي إن إسكور هذه سو
siyaasad xasile inay ka shaqeyso oo goboladii iyo dowlad goboleedyadii oo ay hadda si nabada ay ku wada joogaan oo ay wada hadal ay kula jirto oo compromise badan ay dowladdu weliba samaynaysana waa jirtaa waa dhinaca stability oo doodii dastuurkii iyo negotiationkeedii iyo waxaasoo dhan ay socdaan dhinacii deyn cafinta oo hadda aan hibis aan ku dhownahayba inaan deyn cafintii aan gaarayno hadda waa waxyaalaha positiveka dowladda hadda ay ka shaqeysay awalna xashaqa saa bilaabay dowladdii maxamed farmaajo iyo way sii waday runtii meel fiican ay gaarsiisay hadda inay dhammaystiraan dowladdan ay ku jirtaa oo ayada nafteedana waa dhinac positive ah laakiin madaxweynaha sanadkii ugu horreeya ku jiraa lama qiyaasi karo hadda soo haya laakiin iyo waddadu hadda uu ku socdo direction ahaan ma xuma in shabaabka lala dagaalamo in deyn cafinta laga shaqeeyo in dowlad goboleedyada la isku hayo ase direction ahaan itijaah ahaan dhinaca loo socdo directionkana waa muhim ma xuma laakiin dad badanaa su-aalo iska weydii kara markii laga taga madaxweynaha hawsha kale ee socota ee xukuumad ahaan hawshii la rabay ma tahay dad badanaa su-aalo ka qaba dadkaasaan ka mid ah aniga mar kastana waa dabiici in la muraajaceeyo hawsha xukuumadda ay qabanayso ama hadday tahay kartida xaggeeda ama hadday tahay ka jawaabista baahida dadka ama hadday tahay nooleynta public spiritka ruuxda dadka in la nooleeyo allan dowladdu waa inay dadka ruuxdiisa ay nooleysaan ay ku kalsoonaadaan ay tahay taas aniga dadka su-aalaha runtii ka qabaan aan ka mid ahay oona dhaliilna ka keeni kara waxaan dhaliil lahayna maba jiraanba laakiin ilaa hadda aan dhaliisha aan qaba iyo aragtida aan qaba madaxweynaha si bareefada inaan usii hadda go-aankeyga yahay aniga